dowladda federaalka Soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisii ugu horeysay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah asaga oo wali aan xilliga caleemasaarkii aan la gaarin kormeerkii ugu horeeyay oo ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteediyada dhan aan ka noqonay sharafay noo tahay aadaan ugu faraxsanahay mudana madaxweyne soo dhawow waddankaadii dadkaadii ku soo dhawow meel laga jecel yahay ku soo dhawow dad dawladnimada iyo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhawow waxaan ballan ka qaadaynaa inaan mabda in Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah aad wado ay kala shaqeyso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeedna aan hormuud u noqon hadduu Ilaahay yiraaho intaas waxa dheer sida lala socdo muddo dheer waxa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid binaadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka oo ummadda dhibaateeyay go'doonka joogtada ah oo kala go'ol lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aaday dadku saameysay barakac badanaa jiro waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas inuu Ilaahay baa abaarta bixiyo Ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan bari noo soo bilaabatay roobabka ahna oo Ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqeynaa sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen dadka ugu badan oo soo barakacay waxa ay ka soo barakaceen waa biyo la'aan waa baahi iyo dhibaato uu shabaab ku hayo intaba marka waxay noqon doontaa insha Allah taala inaan hadduu Ilaahay yiraaho aan ka shaqeyno madaxweynaha iyo dowladda federaalkana ay garab weyn ugu siiyaan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay si guud iyo si gaar ahaaneedba waa soo arki doonaa bulshada reer Baydhabo qaybaheeda kala duwan la kulmi doontaa bulshada reer Koonfur Galbeed la kulmi doontaa culummadeeda odayaasheeda dhaqanka ururada bulshada dadka tabaalaysan kuwa soo barakacay kuwa daruufaha qabo kuwa maxay ahaydey kuwa kalsoon intaba waad la kulmi doontaa hadduu Ilaahay yiraaho aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.